بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن أقيارتنا لصعطة إدل كيمبا ميلكس تواد توكتان وصدن كابيشا أكتوبر سنة كاللباكون شن إلا باتن انت بدان برامج كينا أرورنمو إياباهينتا مانتا وحا وكساب سنان دونا علادا كتاغان ودن كالسودان يدعدا دي أرقاق حالهايد كدعداي مقالة اللو يقانا الفاشر أو أحرون قبل كدارفور هالكاسي oo muddo maalmo koobana lagu dilay ilaa iyo 2,000 oo qof sida ay ku waramayaan warbixino kala duwan oo ka soo baxaya hay'adaha caalamka midowga Yurub urur goboleedka IGAD jaamacadda Carabta iyo qaramada midoobay inta badan dadka la laayay ayaa ahaa kuwa rayid ah laakiin argagaxii ugu darnaa waxa uu ka dhacay isbitaalka ay maalgeliso dawladda Sacuudiga kadib markii lagu eedeeyay maleeshiyaadka dacmo sariic inay halkaasi ka geysteen dhibaatooyin xoog leh barnaamijkeena waxa uu dul mari doonaa dhinacyo kala duwan waxaan inta ugu badan diiradda saari doonaa oo aan ka warrami doonaa ninka warbaahinta adduunka ay sida weyn u hadal hayaan oo lagu magacaabo Faatix Cabdalla Idris oo loo yaqaan Abu Lu'lu waa ninka idinka muuqanaya shaashada ee timaha badan ninkan aad u jeedaan waxa la arkaya isagoo qoray booba ah sita isla markaana tooganaya dad rayid ah oo dhulka yaala oo u muuqanaya gacmaha in laga xiray haddaba ninkan war baa laga soo saaray kooxdii dacmo sariica way ka hadleen waxay leeyihiin ninkan waxa uu shaqaynayaa qubaro shisheeye iyo hay'ado sirdoon oo dibadda ah kuwaas oo suurad xumaynaya bay yiraahdeen kooxda iyo waliba halganka aynu ku jirno waa sida ay leeyihiin sida uu ku waramayo ninkan oo telefishinka Sky laga leeyahay wadanka Imaaraadka ay waraysiga ka qaadeen isla markaana lagu magacaabo Faatix Qurayshi oo ah afayeenka kooxda dacmo sariic oo ku sugan magaalada loo yaqaan Al-Fashir نحن قواتنا لم تقم بأي انتهاكات في حق المدنيين هذه اتهامات موجهة qaybta dambe ayaan idigu sii dayn doonaa iyo faahfaahinta aan guda gali doona barnaamijka inta aan idila joogo sidoo kale Maxamed Xamdaan Dagalo oo ah hogaamiyaha kooxda dacmo sariic ama RSF ta loo yaqaano ayaa muuqaal soo duubay kadib markii caalamku uu si weyn uga hadlay dhacdadan argagaxa leh ee ay ku tilmaameen dunida wax aan la qaada karin waxa uu leeyahay guddi baaritaan ayaan samaynayaa من هنا بنعلن تشكيل لجنة التحقيق تبدأ فورا في تحقيق دولة السودان قديدا قربك او هقامية جنرال برهان اللو يقانو قولها قوانيمادا وطنكا اما مجلس السيادة الوطني ايا قدو دا حالي وسيركا وسارة ورفافينتا اهنا افهيانكا حكومة دا ايا شرك رايد قبطي وحاويري ساقو قرطوم كسوغان dunidu waa in ay arrimahani soo farageliyaan kooxda dacmigana waa in loo aqoonsado weeyre kuwa argagaxiso ah oo dhibaatooyin xoog la ka geysanaya wadanka Suudaan كما ندعو ايضا يعني الى محاسبه غاده الميليشيا haddaba sidee wax uga dhacaan magaalada Al-Fashir 500 oo maalin oo ay go'doonsaneed kadib xaaladdu iminka waxay u muuqataa inay ka sii darayso marka darafyo kala duwan laga eego dawladihii kala taageeraya dhinacyada ishaya ayaa aamusan qaanuunka caalamiga ah ayaa la leeyahay waa in la horgeeyo dadkan iyadoo waliba muuqaalo kala duwan ay soo baxayaan Abu Lu'lu xagee ku dambeeya hadda dacmo sariic hadday iska fogeeyeen ninkan uu u shaqayn doonaa kooxdan dacmo sariic markii hore sidee bay ku soo galeen siyaasadda maxaa la oran jiray magacii ugu horeeyay maxayse iminka u muuqanayaan intaasi kadib faaqidaada aroornimo ee saaka waxaan ku fiirin doonaa war ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxa uu leeyahay innaga iyo dawladda Mareykanku waxaynu ka wada shaqayn doonaa sida hubka looga dhigi lahaa kooxda Hamas iyo waliba dhinacyada hubaysan ee Gaza ikhtiyaaray soo dhawaada waa barrow showye faaqidaada aroornimo qodobadaas ayaan ku faaqidayaa barnaamijkan meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leeyahay waqtigu haydin samaado magaalada loo yaqaan Al-Fashir oo ah caasimadda gobolka Darfur ee wadanka Suudaan oo muddada dheer dagaaladu ay ka taagnaayeen
waxaa iminka lagu soo waramayaa inay ka taagan yihiin xaalad bini'aadanimo tii ugu liidatay taasoo iminka caalamku uu si weyn uga qaylo dhaaminayo kadib markii kooxda lagu magacaabo dacmu sariic 500 oo maalin oo go'doomina kadib ay gacanta ku dhigeen magaaladaasi oo ay u diideen biyaha nolosha raashinka iyo gargaarkaba inay galaan markay ciidamada dawladda uu hogaamiye Cabdifataax Burhaan ay baneeyeen halkaasi waxaa durbaba soo baxay in dhibaatooyin xoog leh ay ka dhashaan maalmo kooban ayaa lagu dilay dad aad kor ugu dhaafaya 2,000 oo qof sida ay ku waramayaan warbaahinta adduunka waxa soo baxay muuqaalo argagax leh oo muujinaya in ay tooganayaan kooxo maleeshiyada dad fara badan oo magaaladaasi deganaa gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qowmiyadaha aan carabta ahayn waxaa la arkay nin timo badan oo tooganaya dad isla markaana wada kooxo hubaysan oo wata qoryaha boobayaasha dadka qaar ayaa aad loo aflagaadeynaya ka hor inta aan dhibaatooyinkan loo geysan caalamka ayaa si weyn uga argagaxay markii muuqaalo la yaab leh oo aadan fariir u lahaa lagu soo deeyo baraha bulshada haddaba waxaa la isweydiinayay dadka ninkan uu ka tirsan yahay dhibaatooyinka geysanaya iyo waliba tacadiyada xoogan uu geysanayo haddaba muuqaalka ninkaasi iyo magaciisa ayaa si dhammaystiran loo helay wargeyska la yiraahdo at-taqyiir ee ka soo baxa wadanka Suudaan ayaa ninkaasi magaciisa ku sheegay Faatix Cabdalla Idriis oo loo yaqaan Abu Lu'lu ninkan ayaa la sheegay inuu ka tirsanaa maleeshiyaadka dacmo sariic oo hogaamiye Dagalo oo ay Imaaraadku taageeraan warbixinta wargeyska haddii aan dul maro wargeyska waxa uu leeyahay mid ka mid ah wajiyada ugu madow ee dagaalka ka socda Suudaan ayaa soo baxay magac cusub oo cabsi gelinaya shacabka waa Faatix Cabdalla Idriis oo loo yaqaan Abu Lu'lu kaas oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah taliyaasha sare ee ciidanka difaaca degdega ah ee RSF-ta loo yaqaan ee wadanka Suudaan ka dagaalamaya waxaa si weyn loogu wadaagay baraha bulshada muuqaalo iyo codad muujinaya Abu Lu'lu isagoo si toos ah u tooganaya dad rayid ah oo Suudaan ah gudaha magaalada Al-Fashir ee caasimadda gobolka waqooyi ee Darfur muuqaalada ayaa ahaa kuwa argagax ah oo cabsi geliyay dad fara badan markii la soo bandhigay xanaanka uu ninkaasi samaynayo iyo waxa uu ku dhaqmaya labadaba muuqaalada oo si buuxda loo xaqiijiyay ayaa muujinaya nin xiran dharka rasmiga ah ciidanka RSF-ta oo loo yaqaano in uu yahay Abu Lu'lu isagoo toogasho ku dilaya dad rayida oo qaarkood gacmaha laga xiray kuwaas oo dhulka si arxan darra loogu tuuray mid ka mid ah muuqaalada Abu Lu'lu ayaa la arkayay isagoo ku qasbaya maxaabiista inay ku dhawaaqaan halku dhigyo amaanaya hogaamiyaha RSF-ta Maxamed Xamdaan Dagalo oo xamiidati loo yaqaano ka hor inta uusan si kafool ah rasaas nool ugu dhufan dadkaasi oo codsanaya in la sii daayo isla markaana qaarkood ay tilmaamayaan in dagaalada socda haba yaraatee aanay wax luga ku lahayn amaba aysan dhinaca dawladda ninka la yiraahdo Burhaan aysan ka soo jeedin isaga laftigiisa ayaa si toos ah uga sii daaya barnaamij muuqaal TikTok ah isagoo oranaya waxaan dilnay dad kor u dhaafaya 2,000 oo qof tirada ayuu 100 ka bilaabay waa uu sii waday ilaa uu aad kor ugu qaado ninkan inta kadib waxaa soo baxay in muuqaaladiisa si weyn loo cambaareeyo oo warbaahinta adduunka ay soo bandhigaan gaboodfalladan xoogan oo saameyn ku yeesha caalamka baaqiyo kala duwan ayaa soo baxay qaramada midooba ayaa ka hadashay jaamacadda carabta ayaa war ka soo saartay igaad ayaa sidoo kale codsatay in baaritaano degdeg la sameeyo intaasi marka ay dhaceenba waxaa muuqanaya wadanka Suudaan xaaladiisu in ay tahay mid faraha ka sii baxaysa baqiyadaasi caalamiga ah marka ay banaanka yimaadeen iyo waliba in caalamka aanu u dul qaadan karin gaboodka ka dhashay magaaladaasi waxa dadka ka hadlay kamida dawladda Suudaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladdaasi ahna afhayeenka xukuumadda ayaa sidan yiri بحماية المدنيين وكذلك يدعو المجتمع الدولي
إلى تحميل ميليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي ظلت تمارسها منذ 15 أبريل 2023. كما ندعو أيضا يعني إلى محاسبة قادة الميليشيا على وجه التحديد، لأنهم أثبتوا بالدليل القاطع أنهم مجرمون. خالد العزير وأفهيeenka ahna wasiirka warfaafinta dowladda waxa uu leeyahay wixii ka dhacay magaaladaasi waa inay noqdaan kuwa la iskula xisaabtamo oo aanay noqon kuwa caalamku uu eegto isla markaana laga gudbo tacadiyadaasi. kooxda dacmo sariic waa in loo aqoonsado ayuu yiri inay galeen dambiyo waaweyn oo aad u ballaaran oo naxdin leh. waxa uu soo jeediyay in qaanuunka caalamiga ah lagu la xisaabtamo hogaamiyaasha waaweyn ee adduunka ee ka tirsan kooxdaasi marka la fiiriyo dhibaatooyinka ay geysteen. haddaba markii uu soo baxay muuqaalada Abulu'lu ayaa waxay noqdeen kuwa cidna aysan ka aamusin. hogaamiyaha kooxda ee Xamdaan Dagalo lagu magacaabo ayaa waxa uu yiri waxaan ku dhawaaqayaa in aan sameeyo guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameynaya wixii ka dhacay magaalada Al-Fashir. isagoo hadlaya Dagalo waxa uu yiri dadkaygu in aan difaacno oo aan ka xurayno kali talisnimada iyo kooxaha droniska kala duwan la dhacaya iyo kuwa meelaha kala duwan laga taageeraya ayaan kala dagaalamaynay. askari kasta iyo taliye kasta oo dacmiga ka tirsan oo dhibaatooyin geysta waa in lagu la xisaabtamo ayuu yiri. inta kadib waxa uu sheegay in uu magacaabay guddi madax bannaan oo ka shaqeynaya falalka la yaab kale ee ka dhacay magaaladaasi. waxana uu yiri way madax bannaanaan doonaan baaritaanada ay sameeyeen si dhaqso ah kadib ayaynu ku baahin doonaa natiijada. Dagalo waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay marka la fiiriyo tacadiyada dhacaya iyo mashaakilkan sii ballaaranaya ee Al-Fashir waxay noqdeen buu yiri kuwa aan laga aamusi karin. waxaana dhinaca kale uu ku eedeeyay dhinacyada in ay doonayaan inay suurad xumeeyaan kooxdiisa isagoo yiri innaga waxaan u dagaalamaynaa in militariga gacantiisa xukunka laga qaado oo awoodda ciidamadu ay noqdaan ilaaliyaasha dastuurka maamul rayida oo dimuqraadiyana la helo. waxa uu sheegay in nabad in la qaato uu dhinaciisa aad u ogol yahay. intaasi kadib telefishinka Sky News Arabic ayaa wareystay afhayeenka kooxda dacmo sariic oo lagu magacaabo Fatih Al-Qurayshi oo ku sugan magaalada dhibaatadu ay ka dhacday Al-Fashir. waxa la weydiiyay Abulu'lu ninka lagu magacaabo ee muuqaalada deeyay cidda uu yahay. ماذا عن الصور والفيديوهات التي انتشرت بكثرة وخاصة صور أبولولو المنسوب لقوات الدعم السريع؟ يعني ألا يشير ذلك إلى أنه هذه العناصر تتبع لقوات waxa la leeyahay sida ka muuqata waryahan waxa uu tilmaamayaa in dhacdooyinkii dhacay ay ka soo muuqdeen muuqaalo la baahiyay oo adduunka oo dhan uu arkayay nin la yiraahdo Abulu'lu oo dharkooda xiran oo iyaga ka tirsan miyaanay ahayn baa la yiri maleeshiyaadkaasi kuwa adinka idin raacsan oo dacmiga dhibaatadan ay geysteen. waxa uu leeyahay نحن نطلب تحقيق دولي في هذا الامر ان يتطلب الامر. نحن الان قمنا بتشكيل لجنه بغرض تحصي الحقائق، ونحن ذكرنا سلفا بان المدعو أبولولو هذا المذكور لا يتبع لقواتنا. waxa uu leeyahay waxaan dhisnay guddi baaritaana oo madax bannaan. waxa uu tilmaamayaa baaritaanadooda waa Fatih Al-Qurayshi oo ka hadlaya magaaladii tacadigu ay ka dhaceen sida uu telefishinka u sheegay markii muuqaalkan sida tooska uu soo galay in baaritaanadaas ay noqonayaan kuwa madax bannaan. waxa uu leeyahay sidoo kale ninkan lagu magacaabo Abulu'lu kuma jiro diiwaanka ciidamadeena mana naqaano laakiin fiidiyoyada ayaan ka aragnay baaritaanada ayaana wax badan lagu cadeyn doonaa. waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in hay-ado waa sidoo isaga leeyahay muqaabaraad ka tirsan ay ninkan isticmaali karaan baaritaanadana wax badan ay ku kala cadaan doonaan. mar kale ayaa la weydiiyay su'aal xasaasi ahayd Fatih Al-Qurayshi oo ku saabsanayd arrimaha dagaalkan iyo waliba inay qabteen ciidamo 15,000 gaaraya oo ka tirsan dawladda. تحدثت بعض المصادر عن وجود نحو 15,000 معتقل من الجيش
والقوات المشتركة لدى الدعم السريع. هل تؤكدون هذه المعلومة حضرة المقدم؟ ما مصير هؤلاء؟ كيف تتعاملون معهم؟ waxyaabaha yaab kale telefishinkan waraysanaya ninkan imaaraadka laga leeyahay ina faantaan waaye Sky News la yiraahdo waxa uu leeyahay wararka qaar ayaa tilmaamaya inaad qabateen 15,000 oo ka tirsan ciidamada waa dawladda Suudaan iyo kuwa iyaga la socda quwaatil mushtaraka ayuu leeyahay kuwa iyaga la socda arintaas ma xaqiijinaysaan kow haddii aad haysaana sidee ula macaamilaysaan mararka qaar waxa la yiraahdaa hebel pass la siiyay balse oo isaga u dhiga arka ninka marka askariga waxa uu ku hadlaya fahansan oo runtii afayeenka waxa looga dhigaysan sahlanayn sidee uga jawaabi doonaa talo اولا ما جاء بهذا الرقم هو خطا. انا لا اعتقد بان قواتنا قامت باسر 15,000 من منسوبي الجيش وحركات الارتزاق المسلحه. نحن ما leeyahay horta tirada aad sheegteen u malaynaayo inay jirto buu leeyahay oo ciidamada ka tirsan raggan wali ciidamadii dawladdu waxay u yaqaanaan ciidamada iyagana waxay isku yaqaanaan ciidamada marka waxay isku arkaan ciidanka qaranka wadanka Suudaan oo wada dagaalamaya horta sidaas ay u arkaan laakiin wuxuu leeyahay iyo kooxaha murtasiqada ah oo la jeedo calooshood u shaqaystayaasha la socda Suudaan marka xaaladooda runtii meel adag oo aad u liidata ayay maraysaa waxaana dhacaya gabood fallo iyo dagaal sukeeya kii ugu daraa oo wadankaasi lacagaha la galo muddo dheer waxaana iminka ay muuqanaysaa wadankaasi dhibaatooyin ka dhacaya durbaba caalamka inuu soo jeeday wargeyska la yiraahdo taqriirna waxa uu leeyahay waxa muuqanaya burhaan iyo iyaga inay wada hadal gali doonaan ninkan oo la yiraahdo dagalo oo hadda dareemaya xanuunka tacadiyada iyo dhibaatooyinka dhacay ilaahay baan uga rajaynaynaa Suudaan isbedelo nabadeed oo waaweyn inuu ka soo saaro dadkaasna mashaakilka ay ka baxaan ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa booqday xerada koonfurta Israa'iil dhulka Falastiiniyiintu ay ka haystaan ay ka dhisteen ciidamada Mareykanka ee la soconaya howlgalka magaalada Gaza waxa uu tilmaamay in dawladda Mareykanka iyo Israa'iil ay ka wada shaqeyn doonaan arrimo muhiim ah oo ku saabsan hubka dhista kooxaha hubaysan ee Gaza ku sugan isla markaana la aadi doono horumar iyo waliba in isbedelo waaweyn ay dhacaan Israa'iil waxay ku dadaalaysaa wali in hubka laga qaado kooxaha Falastiiniyiinta iyadoo dhinaca kalena dhinacyada hubaysan ee gobonimo u dirarka Falastiiniyiintu aanay wax jawaaba soo saareen khiyaartayna la socotay 10 aroornimo ee saaka iyo barnaamijka qubanaha Barrow Show intaas ayaan ku gabagabaynayaa waxaan idin leeyahay